sharcigan ayaa haatan ku jira marxaladda koowaad ee habraaca sharci dejinta waxaana Koongareeska loo gudbiyay 12 Diseembar ee sanadka 2024 ee sii dhamaanaya sida caadiga ah waxaa hindisa sharciyeedkan la horgeyn doonaa shirka guddiga ee soo socda ka hor inta aan loo gudbin golaha ama gurtida guud ahaan sharcigu waxa uu ka dhigan yahay tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo ictiraaf raadinta Soomaaliland ee 10 sano jirsatay waxa uu soo jeedinayaa in Mareykanku uu si rasmi ah ugu aqoonsado Soomaaliland dal gooni ah oo ka madax bannaan Soomaaliya hindisa sharciyeedka waxa kale oo ku jira in xafiis diblomaasiyadeed oo Mareykanka leeyahay laga sameeyo Hargeysa waa caasimadda Soomaaliland iyada oo loo marayo safaarad ama qunsuliyad xeerka waxa kale oo qiraya in Soomaaliland si joogto ah u qabatay doorashooyin nabad ah iyo sida ay uga go'an tahay dawladnimada dimuqraadiga ah tan iyo markii ay ku dhawaaqday in ay madax bannaanideeda la soo noqotay sanadka markuu ah 1991 isla xildhibaankan ayaa sanadkii 2022 oo markaasi ka tirsanaa guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa golaha wakiilada u gudbiyay hindise uu ku dalbanayo in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax bannaan guddiga arrimaha dibadda ee Perry ayaa sidoo kale u gudbiyay Koongareeska Mareykanka xeer ay ku doonayeen in ay xiriir diblomaasiyadeed iyo mid amniba ay la yeeshaan Soomaaliland tallaabadaasi ay sharci dejiyaashu Mareykanka aqoonsiga ugu raadinayeen Soomaaliland ayaa daba socotay booqasho 10 maalmood ah oo markaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay dalka Mareykanka laakiin kooxda siyaasadda oo ah koox u ololeynaysa midnimada Soomaaliya ayaa markaasi ku dhawaaqday inay ka soo horjeedaan waxa ay ku tilmaameen isku day lagu doonayo in lagu kala gooyo Soomaaliya hindise sharciyeedka xildhibaan Perry ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bishii hore uu xildhibaan Gavin Williamson oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Ingiriiska uu sheegay in madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump uu qorsheynayo in uu dal madax bannaan u aqoonsado jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland xildhibaan Gavin waxa uu intaa ku daray inuu kalsooni ku qabo in madaxweynaha Mareykanka ee la doortay uu ka dhabayn doono aqoonsiga Soomaaliland marka uu xilka la wareego bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2025